waxaa maanta si rasmi ah u furmay tartanka kubadda koleyga ee kooxaha markaasi loo yaqaano 3x3 oo kamid ah tartamada ay markaasi qabtaan xiriirka kubadda koleyga ee dalkeena Soomaaliya. tartankan ayaa markaasi waxa loo qeybiyay ilaa iyo dhowr group, waxaana ka qayb gali doona 12 group oo waaweyn oo markaasi kooxaha ka tirsan xiriirka kubadda koleyga oo sanadkii saddexaad ee qabanaya. tartanka ugu horeyntii waxaa furay kaaliyaha xiriirka kubadda koleyga iyo sidoo kale mas'uuliyiin aad u fara badan oo kasoo qayb galay gudoomiyaha kubadda ku-xigeenka kubadda koleyga iyo sidoo kale agaasimaha waaxeedka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo isna markaasi daah furay tartankan. mas'uuliyiintaas ayaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin kale aad u fara badan. kooxda koowaad ayaa markaasi lagu bilaabay tartanka markaasi xiisaha badan kubadda koleyga, waxaana markaa lagu bilaabay kooxda Gift Star iyo sidoo kale kooxda Midnimo. ciyaartaas oo ku soo idlaatay 14 iyo 12 oo guusha ku dhacday wiilasha kooxda kubadda koleyga markaasi Gift Star. kulanka xiga ayaa markaasi waxaa wada ciyaaray kooxaha OFC iyo sidoo kale Gift Star oo kulankeedii labaad isla maanta markaasi ciyaartay, waxaana mar kale adkaaday kooxda Gift Star oo 13 iyo 6 markaasi ku adkaatay. sidoo kale ciyaaryahan kale ayaa qalad galay kaasoo ciyaarta laga saaray, waxaana kooxda bedel ku soo galay maadaama bedel badan ay sameeyeen macallin Daadir oo markaasi ama Daadir Diyeesho loo yaqaano ayaana ciyaarta soo galay. ciyaarta kale xiisaha badneed ayaa lagu suday group B, waxaa ku wada jiray kooxaha Plasma iyo Somali Fruit iyo sidoo kale kooxaha markaasi ay ka mid tahay Hagen oo kulankan ay markaasi ka maqneed, waxaana 4-5 qaatay kooxda Plasma. sidoo kale kooxda Somali Fruit ayaa iyadana 4-5 la siiyay. kulanka ugu dambeeyay ayaa wada ciyaaray kooxaha markaasi Plasma iyo Somali Fruit. ciyaartaas ayaa waxay ku soo dhamaatay 14 iyo 7 oo guusha ku dhacday kooxda markaasi Plasma. sidaasi ayaa maanta loo ciyaaray. halkaas kulan ayaana baaqday kooxda Hagen ayaa gebi ahaanba tartankan ka haray, waxaana soo baxay kooxahaasi. waana tartan aad u xiiso badan. dhanka kale waxaa iyagana markaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir ee kubadda koleyga loo magacaabay Igraan Cabdullaahi ama loo yaqaan Steelka Xooshay oo markaasi loo doortay inay noqoto gudoomiyaha kubadda koleyga maamulka gobolka Banaadir, oo ay markaasi soo magacaabeen isla maamulka gobolka Banaadir oo ay u aqoonsadeen inay markaasi ahaato gudoomiyaha markaasi kubadda koleyga maamulka gobolka Banaadir. waxayna digreetadan soo baxday galabta oo markaasi loo doortay Igraan Cabdullaahi Maxamed ku magac dheer Steelka Xooshay oo loo magacaabay gudoomiyaha kubadda koleyga. horey uma lahayn, waxayna noqonaysaa sanadkan in ay yeesheen gudoomiyaha kubadda koleyga, waxaana laga sugayaa inay dardargeliso howlaha guud tartanka kubadda koleyga oo markaasi dhawaan la ciyaari doono tartanka kubadda koleyga degmooyinka gobolka Banaadir.